dhulgo ka dhacay dalka Itoobiya ayaa waxa ku dhintay in ka badan 230 qofood. Intaan u gudagalin warbixintan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato, waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto mahadsanid. Kooxaha gurmadka degdega ah ayaa ilaa iyo hadda soo saaray meedadka dad tiro ahaan gaaraya 229 qofood kadib dhulgo ka dhacay deegaan ku yaala koonfurta dalka Itoobiya sida uu warbaahinta BBC-da u sheegay sarkaal dadka deegaanka ah. dhulgo'an ayaa dhacay fiidnimadii Axadda iyo subaxnimadii Isniinta kadib markii roobab xooggan oo mihigaan ah oo laba jeer dhulkii gooyay uu ka da'ay deegaanka buuraleyda ah ee aan la gali karin ee goobo lagu magacaabo. Maamulka dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in ay wali baadgoobayaan dad ay ku tuhmayaan in ay nool yihiin oo ku hoos jira dhoobada hoosteeda. waxa ay sheegeen in ay ka cabsi qabaan in ay tirada dhimashada ay intaasi ka sii badato. Sawiro laga soo qaaday halka uu ka dhacay labada dhulgo ayaa muujinaya dad badan oo u gurmanaya dadkii uu dhulka la go'ay. Dad badan ayaa qodaya dhoobada si ay dadka ugu soo saaraan, halka dadka kalena ay tuban yihiin hareeraha deegaanka si ay dadka la soo saaro ay ugu fadiyaan gurmad caafimaad oo degdeg ah ama ay la gaaraan goobo caafimaad si loo badbaadiyo noloshooda. Madaxa maamulka deegaanka uu dhulgo'an ka dhacay oo lagu magacaabo Degmaawi ayaa warbaahinta BBC-da u sheegay in dadkii halkaasi ku dhintay ay u badnaayeen caruur iyo dumar. Waxa uu hadalkiisa intaas ku daray in ay soo badbaadiyeen 10 qof oo dhaawacyo kala duwan qaba, kuwaas oo lagu daweynayo isbitaalada ku yaala deegaanka. Tiro meedad ah ayaa hadda laga soo saaray goobtii uu dhulgo ah ka dhacay, waxaana ku jira ku dhawaad 50 haween ah oo ku geeriyooday halkaasi, waxaana laga cabsi qabaa in ay tirada dhimashada ka badato 230 qofood. Roobab mihigaan ah oo da'ayay Axaddii ilaa Isniintii ayaa waxa xigay 2 dhulgo oo degdeg ah, kaas oo ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Goofa oo ku yaala koonfurta dalka Itoobiya. Saraakiisha deegaanka waxa ay sheegeen in ciidamada deegaanka iyo dadka deegaankaba ay wadaan gurmad degdeg ah oo ay u fidinayaan dadkii ku waxyeeloobay dhulgo'aasi. Dhulgo'ii koowaad ayaa dhacay kadib dhulgo'ii labaad waxa uu dhacay markii goobtaasi lagu soo xoomay oo ay dad badan yimaadeen, kaas oo dhaliyay khasaaraha ugu badan ee halkaasi ka dhacay. Marar badan ayaa sidan oo kale waxaa roobab mihigaan ah oo ka da'ay dalka Itoobiya ka dhacay dhulgo'yo ama ka dhashay dhulgo'yo, kaas oo sababay dhimasho tiro beel ah. Mana ahan markii ugu horeysay oo Itoobiya ay musiibadan oo kale ay ka dhacdo, laakiin musiibadii dhacday Axaddii ilaa Isniintii waxa ay noqonaysaa mid ka mid ah kuwii ugu darnaa ee soo mara deegaankan ku yaala koonfurta dalka Itoobiya.